Fishing is a vibrant sector along the Somali coast, employing over 70,000 workers and contributing $125 million per year to the economy. The continued growth and development of the Somali fishing sector is crucial to ensuring long-term food and economic security and building resiliency to conflict and natural disaster. May 2003 ayaanu bilownay anagu horta hawsha kalluumaysiga. Maalintii ugu horeysay waxaan nalaga iibsaday 2 kiilo 3 kiilo ku xigay 4 maalmood markii aan joognay 15 kiilo nalaga qaaday dabeedna farxad waanu dilacnayba talaagada wuxuu ku jiray marka laga qaato kala maay okay maanta uu kala hadla maanta waxa weeyaan haddii 10 tan oo kalluuna laga diro berbera oo hargeysa loo diro talaagada wax lagu ridaa way yaraanaysa. While the sector has seen increases in fish export over the last few years, improvements in management must be made in order to sustain fish stocks and avoid overfishing. Even as the industry provides economic opportunities, Somali fishers are strained by their outdated equipment and foreign competition. waayo badda waxa lagaga shaqeeyaa qalab casri ah ayay imika maraysa qalabkaan anagu ma hayno wali oo namu soo gaarin waxa jirta adduunyadu imika manaya inay marayso in kalluunka halka uu marayo la arko oo dabeedna doontu halka ay istaagto ka ugaadhsato anagu laakiin shabag gunta uu tegayo inay wax leedahay iyo in kale aan la kala garanayn baan shabag ku ridnaa marka dhibaatada noogu badan waxay naga haysataa xagga qalabka kalluumaysiga oo kaayagu yahay kii 100 sano ka hor adduunyadu kaga shaqaysan jirtay laakiin carqaladda ugu weyn ee dhibaatada ay had iyo jeer aan ku baqnaa waxa weeyaan badda waxa lagu soo daayaa maraakiib jiriif ah oo dalalka shisheeye ay leeyihiin kuwaasoo sharci darro ku soo gala waddanka habeenkiina shaqaysta haddii uu ku jiro cidis wax weydiinaysa ma jirto oo baal tuugaba oo aan cidiba ogeyn weeyaan meel laba ka diiwaan gashay. Increased management and regulation of both foreign and domestic fishing in Somali waters would not only ensure sustainability, but also create additional economic opportunities through licensing. Despite their challenges, Somali fishers continue to persevere. Local demand for fish is growing, and there are many opportunities to invest in the value chains that support the Somali fishing sector. With continued support through investment and improved management, the Somali fishing sector has the potential to boost the Somali economy, ensuring long-term growth and stability in the region.